qaybtan waa qaybtii toddobaad telesom oo ku saabsan yahay. Maantana waxaan ka hadli doonaa sida loogu sarrifto application-ka Somali Sarif Telesom to eDahab. Telesom haysataa, eDahab aa rabtaa qaabka ugu sarfin lahayd, iyo eDahab aa haysataa, Telesom aa rabtaa qaabka ugu sarfin lahayd. Sidoo kale waa kasoo hadalnay Perfect Money, Dogecoin, Tron, dhammaantood waa kasoo hadalnay. Qaybaha kale ayaad kasoo daawan kartaa. Okay, application-ka Somali Sarif ayaan galaynaa hadda. Kadib halkan aad taawaneynaa Telesom app-ka waxaa kasoo degsan kartaa Play Store-ka. Ugu horreyn si lacag ugu sarfito waa inaa account ka samaysataa. Halkaas aad taawaneysaa, kadibna register aad taawaneysaa. Qaybta koowaad ayaa ugu soo hadlay sida Somali Sarif account loogu samaysto. Okay, hadda waxaan taawaneynaa Telesom haysanaa. Kadib waxaan rabnaa eDahab. Meeshan selected oo labaad waxaa ka dooraneysaa eDahab. eDahab markaas doorato $10 iyo bar yacni markaad dirayso ama $10.25 ama $10.20 $10.20 markaad dirayso $10 helaysaa. Kadib waxaa ku dhufanaysaa exchange. Wuxuu ku leeyahay account ka sameyso, yacni account markuu sameysno username-ka iyo password-ka haddii hore ugu samaysatay ayaa gashanaysaa. Haddaa hore ugu samaysanna register aad taawaneysaa. Ma fahantay? Kadib account markaad samaysato login dhahayd, kadib haddaa exchange ku dhufanaysaa. Account-ka markaad gashay sida caadiga waa kala. Kadib meeshan waxaa ku qoraysaa eDahab wallet. eDahab wallet-kaada ku qoraysaa eber 67 hadduu ka bilaabanayo ama eber 62 hadduu ka bilaabanayo. eDahab-kaada ku qoraysaa, nambarkaada eDahab ayaa ku qoraysaa. Ma fahantay? Kadib waxaad taawaneysaa confirm. Kadib kana koobi leedahay lacagta $10 saas ayaa leedahay, saas dane koobi ayaa leedahay. Halkaan imaaneysaa, kadibna basti ayaa ku leedahay. Kadib lacagta halkaa ku qoraysaa $10.20 saas u diraysaa. Kadib okay ayaa leedahay. Kadib PIN-kaada gelinaysaa. Markaa PIN-kaada gelisid kadibna meeshan waxaad gelinaysaa nambarka lacagta kasoo dirtay oo Telesom. Kadibna waxaa leedahay submit. Qaabkaas ayaa loogu sariftaa. Ma fahantay? Markaad Telesom oo sarfinaysa qaabkaas ayaa loogu sariftaa. Meeshan pending waaye, approve it ayaa lagu soo dhahayaa markii la hubiyo lacagtaada wax yar kadib. Kadib koraad soo jiidaysaa, waa kana waa approve it, waa la approve it gareey. Ma jeedaa? Haye waxaa haddana qaabka ula bixi lahayd yacni eDahab to Telesom markaa iibsanaysid. Waxaa ku dhufaysaa halkaas ku dhufaysaa select currency. Kadibna waxaad sii dooranaysaa eDahab sii dooranaysaa. Kadibna halkaan waxaad sii dooranaysaa Telesom. Markaa eDahab haysato oo Telesom ka dhigaysid waaye. Kadibna halkaan lacagta ku qor $2 haddii tahay, $3 haddii tahay. Kadibna exchange dheh ku dhufo. Kadib exchange markaa ku dhufatid, kadib Telesom wallet-kaada geli. Nambarka lacagta lagu soo diri lahaa Telesom ka geli. Kadib confirm dheh exchange. Kadibna lacagta kan ayaa ku diraysaa. Kadib qaabkan kugu soo qormaa. Ma fahantay? Qaabkan kugu soo qormaa. Kadib nambarkan koobi gareey, nambarkaas saas koobi gareey. Kadibna halkaan imaaw. Kadibna lacagta ku dir. Qaabka eDahab lacag loogu diro waa garanaysaa. Lacagta ku dir. Markaa lacagta ku dirtid nambarka lacagta kasoo dirtay halkaan gelinaysaa oo Telesom-ka. Nambarka lacagta ku dirtay oo Telesom oo kasoo dirtay ayaa gelinaysaa. Kadib waxaa leedahay submit. Kadibna pending waaye hadda
wax yar kadib marka la confirm gareeyo kadibna approve it ayaa meeshan kusoo qormaysa. Marka lacagta kusoo diranto koraa soo jiidaysaa, kadibna kor soo jiid waa kana approve it, waa la approve it gareeyay, qaabkaas loogu sariftaa. Haddii aad rabtid akoonkaada gudaha waa u gali kartaa, waa fiiri kartaa lacagaha aad sarfatay. Waxaad taabanaysaa halkan kore, aad taabanaysaa saddexdaas dhibic. Markaad taabato kadib waxaad taabanaysaa lodge in meeshaan aad taabanaysaa. Akoonkaada gudaha haddii uu rabtid inaad u gashid lodge in aad taabanaysaa. Waa kana lacagaha aad sarfatay 2 jeer waaye, 2 jeer aad lacag ka sarfatay Soomaali sarif aa lagu dhahay. Waa kaas meeshaan balance zero marka qof oo linka iska soo diiwaan geliyo aad lacag ugu samayn kartaa. Halkan ku dhufo views all leh. Waa kana lacagii aad sarfatay 2 jeer, ma fahantay? Waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.